beri ayaan sameyn. Maya hadhow leen noogu dhig. Maya adi beriyaa dhammaystireynaa iska dhaaf. Maanta waxaa ka hadlaynaa dib u dhigid. Waa maxay qofka sababta oo waxyaabaha dib ugu dhigayo? Okay, marka horta waqtiga saddex loo qaybiyaa. 1 wax tagay oo la soo dhaafay. 2 wax hadda la joogo. 3 iyo mid mustaqbalka aan weli la gaarin. Haddaba ogow, saddexdaas waqti waxaad ku leedahay kaliya waa midka kaliya ee waqti xaadirkan la joogo. Shalay waa kaa tagay, mustaqbalkiina gaaraysid moogid, laakiin waxaad jaanis u haystaa kaa hadda joogtay inaad wax ka bedesho. Waqtiga aad hadda joogtidna hadaad ka faa'iidaystid, aad si fiican ku faa'iidaystid, mustaqbalka ayaad waxaa ka gaari kartaa natiijo aad u wanaagsan. Laakiin haddaadan ka faa'iidaysan waqti xaadirka aad joogtid, aad la imaatid wax maalaayacli aan faa'iido ku leenaan dhahdo maya beriyaa qabanaa, maya hadhow waa qabanaa, ogow mustaqbalkaagi ayaa meesha baxay. Natiijo aad u fool xun inay kasoo baxdaa laga yaabaa, iyo walwal. Mustaqbalkana waa ku khasaaray, waqti xaadirka aad joogtidna waa ku khasaaray. Ogow, waayo qofka xilliguu joogay hadduu ka faa'iidaysan waayo, mustaqbalkana waxba uma soo kordhin, tii ka dambeysana natiijo xun ay noqoto. Waqti xaadirka bes wax qaban kartaa, wixii shalay lasoo dhaafay kaliya waa sheegi kartaa le, waxaad ka qaban karta male. Haddaad naga qomameynayso waqtiga kusoo dhaafay, aad u calaacalayso 24 hours u oynayso, waa isku daalin. waqtiga kusoo dhaafay waa siduu kuu dhaafay, kuuma soo laabanayo. waqti xaadirka aad joogtid le haska sii khasaaran. waqtigaaga hadda ka faa'iidayso, waayo ogow waqtiga hadda joogto hadaad ka faa'iidayso wax beriyo shalay noqona. mar hadduu shalay noqdana wax aad ka qaban karto male. jaanis waxaad u haystaa waqtiga hadda taagantahay inaad wax ka qabato. Haddaad isdhehayso yaa waqtiga gadaal kugu celiya mar ogow waqtiga hadda jaanis u haysataa, hadda wax ka qaban kartaa. wixii hore way ku dhaafeen Soomaa, hadda haysta waqtiga hadda ka faa'iidayso jaaniska aad hadda haysatid. Nin ayaa jiray wuxuu dhahay anigoo 21 jir ayaan waxaas dhahay guurso, laakiin dhaqaale yar awgeed iskaga dhaaf. Laakiin hadda anigoo jiro 40 sano ayaa guursaday. xilliga 21 sano jirane dhaqaalihiisu ugu yaraayo haddana ugu yaryahay. waqtiga waa iska khasaariyay haddana waa guursaday. nolosheedana isbedel dhinaca wanaagga ayaa ku dhacay. ha sugin wax la yiraahdo markuu xaalka wanaagsanaado ayaan sameynayaa. sababtoo qofka ku kalifayso inuu howlaha dib u dhigo waa maxay? waxaa ka mid ah qeybahan soo socda. 1 xanuun. anaa markaan dhahayo xanuun lama jeedo xanuunka saxda ah, waa ka baqida wax akhrinta. tusaale ahaan, haddii ku taalo maado imtixaan laga rabo, sida maadada xisaabta camal ka soo qaad, inaad maadadaas ka shaqeyso aad akhriso waxaa kaa hor istaagayo ka baqida xisaabta. heer aad dib u dhigto ee hal mar kugu soo baraarugto maalinta imtixaankii oo la joogo, oo isdhaho war daali rafad waa inta akhrinaysid, oo isku mashquuliyo oo isdhaho war mar kale qabanin. 2 u leexashada nafta waxa ay rabto. tusaale ahaan, YouTube-ka waxaad ka barataa luqadaha iyo sida fiidiyoyada loo sameeyo. waxaana kaaga baahan yihiin, waad ogtahay inay kaaga baahan yihiin maskax, waqti, dadaal. marka waxaad u carari dhinaca Facebook, fiirsashada muuqaalada qosolka leh ama barnaamijyada ama qoraalada la akhrinayo qosolka ee inaad mar kor u wado iyo mar aad hoos u soo wado iyo mar aad comment fiiriso. adigu malayacnigaas waqtiga ku dhameyso. arrinkaasoo keenayo waxaad qaban lahayd inaad dib u dhigto. micnaha waxaad dareemaysaa hadda
maskaxdaada wax ma qaban karto, waa daalan tahay, xoogaa yar isku soo kala bixi Facebook iyo war haddii 1000 sano lagu siiyo xataa ood waqti ku bixiso Ibrahim maxay tiri, Ibrahim muxuu yiri, wax noloshaada ku soo kordhayo malahan taatan. Midaas waa inaad la socoto horta, laakiin haddaad u sabarto 20 daqiiqo dhibka dareemitaankeeda aad is adkayso ood wadood ood riixdo, waxaa ka dhalanayso natiijo aad u wanaagsan, ama taas ayaa kaaga fiican. Khatarta ay leedahay dib u dhigista, xadgudub iyo dulmi aad kula kacdo naftaada iyo waxqabadkaaga, murugo iyo walwalna wuu kuu keeni, iyo midda u liidato ee ah mas'uuliyad la'aan. Haddaba xalka waa maxay? Solution-ka u keenin maahan inaan mar ku dhayn kiniiniga dib u dhigista waa kana oo dhac cab oo ka baxa ma ah. Qofka waxay ku xiran tahay damiirkiisa iyo wacyigelintiisa. Lahaanshiyaha wacdiga waa inaad ogaato khatarta dib u dhigista, inaad u fikirto qof mas'uul ah, aadna dareento muhiimadda ay leedahay inaad hawshaada haddeertaan aad qabato, aadan dib u dhigin. Midda labaad, ha baqin, geesinimana qalabkaaga ka dhigo. Midda saddexaad, waa inaad naftaada tartiib tartiib ugu riixdo, aad la dagaalanto dib u dhigista. Tusaale ahaan, inaad hawsha 10 daqiiqo waa wax weyn ma 10 daqiiqo inaad qabato oo mobilka ku programsato sida maadada xisaabta 10 daqiiqo baro, xogaadan soo joog u soo laabo 10 daqiiqo kale tartiib si aad u yareyso dib u dhigista. Xilli waxaad gaaraysaa aad go'aan qaadato, go'aan adag waa inaad qaadato. Ogow inaysan jirin adduunyo inaysan ciyaar kugu imaanin, wax ciyaar loo iyo bajaq iyo ma jiro. waa adeeg. Adduunyadan waxay u baahan tahay in la soo waajaho. intaas oo gabagabeynayna. Assalaamu calaykum waraxmatullah.